السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناكسن صاحبي السود وهذا ومد كمد muuqaalada aan kaga hadlo fiisooyinka caalamka waxaan markaani aan soo qaadan doonaa mid ka mid ah fiisooyinka lagu tago dalka Canada waana fiisaha waxbarashada gaar ahaan luqadaha waa walaalkiina Azaam hadii uu yahay markaagii ugu horeeyay nagu soo biir fadlan YouTube ka subscribe noo saar oo videoga noo share garay saaxiibayaal markale dawladda dalka Canada oo soo kordhisay program waxbarasho ee lagu tago dalkaasi waxaana ka mid ah luqadda Ingiriiska sidoo kale Faransiga haddii aad tahay muwaadin Soomaali oo u baahan inuu tago dalkaasi Canada waliba haysto shahaado dugsi sare ama mid jaamacadeed waxaad markaasi ka faa'iideysan kartaa fursadda dawladda Canada ay siinayso dhammaan ajaanibta dalka Canada ay soo galayaan dawladda dalka Canada ayaa programkan ugu talagashay dadka da'dooda ka weyn 18 ilaa da'dooda ay gaarayso 34 jir haddaba waxaa jiro dad badan oo rabo inay ka faa'iideystaan fursadani waxaan qaybta hoose aan ku soo dhigay linkiga ee aad ka xariisanayso ee kolejyada ku yaalo ee dalkaasi Canada si aad markaas qayb ugu noqoto dadka uu aaday luqadda haddii aad hesho mid ka mid ah ee kolejyada ku yaalo dalkaasi Canada aad u fudud inaad hesho fiisaha adigoo u xariisan doono si online ah dhanka kale dadka xareystay ee programkani ee la soo aqbalay oo heesta waraaqadaha aqbalaadaha ee ugu soo dhacay kolejyada ku yaala dalkaasi Canada waxaan markaasi qaybtaani dambe ee videoga aan kugu tusi doonaa adigoo wadankaaga jooga sida fiisaha aad u xariisan doonto ayadoon ahayn mid markaasi aad iyo aad u adag si aad u xariisato fiisaha dalkaasi Canada waliba online ka Google waxaad ku qori doontaa Canada visa application wuxuu ku keeni doonaa halkaani saddexdan process aad buuxinaysaa personal and travel information iyo confirm your data iyo payment method saddexdaana ugu daran ee qaybta koowaad waxaad ku buuxin doontaa xogtaada oo dhameystiran magacaaga surname-kaaga taariikhda aad dhalatay sidoo kale baasaboorka aad wadato noocu yahay iyo waxaas aad ku buuxin doontaa qaybta labaad ayadina xogtaada oo dhameystiran qaybta saddexaad aad waxaad ku sameyn doontaa inta lacag safaaradda ay qaadanayso halkaani ayaad ku diri doontaa dhammaan codkii waxaan dareemaa in xoogaa igu soo laalaabanayo cafwan qof walbo si nadiif oo xogtaada dhameystiran waliba xogta baasaboorkaaga ku qoran aad markaasi meeshan aad ku buuxinaysaa haddii ay dhacdo waxyaalo kale oo isdawmarsan ina meeshan aad ku samayso waxaa laga yaabaa in fiisaha magac kale uu ku soo baxo safarkaagana hadhowdii culays yar inuu ka yimaado dhanka fiisaha dhankiisa xogtaani markaad dhammaystirtid ilaa meesha ugu dambeyso baasaboorkaaga xogtiis geli markuu ku dhaho waxaad markaasi aad gelin doontaa dhammaan waxa baasaboorkaaga ku qoran taariikhda dhalatay xilliga baasaboorka aad soo qaadatay xilliga markaas baasaboorkaaga uu dhacayo waxaas dhan aad buuxinaysaa marka passport information-kaaga wuxuu kaloo ku weydiin doonaa haddii ay jiraan wadan kale oo citizen adiga ka haysato ama dhalasho ama travel document ha ahaado ama iqaamad oo caadiga ha ahaado sida Sacuudiga iyo Turkiga iyo meelahaas camal iqaamada la iska siiyaa wadamadaas haddii aad joogto camal waxaad samayn kartaa inaad buuxiso wadanka aad joogto iqaama numberkaaga waxaaga inaad geliso oo ku weydiinaa haddii aadan haysaninna meesha citizen-kaaga Soomaaliya iskaga dhigaysaa haddii ay jirin wadan kale oo adiga oo resident ah haysatidna waxaa leedahay no intaas markaa buuxiso kadib waxaa leedahay next wuxuu ku geyn doonaa qaybta labaad ee xigto waxaan markaas aan rajayn doonaa buuxinta meesha marayo iyo hadalkii aan markaas aan ku hadlayo codka inay isdhaafsan yihiin waxaan u sameynayaa wax kale ma aha waqtiga aan haysanaa aad u yar qof walbo oo markaas buuxinayo foomkan waxaan dareemaa uma baahna sharaxaad intaasi oo ka badan oo waa wax la iska fahmi kara qof walbina uu buuxsan karo waaye meesha passport numberka ku qoran isla passport numberkaaga meesha kalena aad ku buuxinaysaa marka ugu dambeyso aad dhameyso qaybta ugu dambeyso waxaad sameyn doontaa markaas qaybta paymentiga markaad tagto wuxuu ku weydiin doonaa Mastercard ama Visa-ka intaasi markuu ku weydiiyo haddii Mastercard aad doorato iyo haddii Visa-ka aad doorato labadooda midka haysatid wuxuu ku weydiinaa fiisaha time-ka ama waqtiga adiga aad doonayso duration-ka haddii oo 24 saac aad doorato lacagtii oo normal fiisaha lacagta la qaadayo way ka badan tahay haddii 3 maalin aad doorato ilaa hal isbuuc ugu badan marba markii ka dambeyso oo ka waqti yar way ka lacag badan tahay 8 saacadood ilaa 4 saacadood ugu yar 4 saacadood amal hadeer waa lacag oo $300 gaaraysa haddii 3 maalmood aad doorato waa lacag $100 wax la jiro dollar haddii isbuuc aad dooratana waa lacag adiga $60 ilaa $70 meelahaas waaye intaas marka Mastercard-kaaga ama Visa card-kaaga ka go'aysaa
haddii ay lacagtaas ay kaa go'do waxay kuu soo diri doonaan Gmail oo waxayna kuugu soo dirayaan Gmailka halkaan adiga aad ku buuxin doonto Gmailkaas xogtaadana lagu soo diri doonaa oo fiisahan xaggay kuugu soo dhici doontaa sidoo kale xilliga fiisaha lagu soo aqbalayna waxaad ka arki doontaa halkaasi in safaaradda ama online ahaan fiisahaaga loo aqbalay ayadana waxaad ka arki doontaa Gmailkaaga xogtoo dhan waxaad markaasi aad kala socon doontaa Gmailkaaga haddii ay fiisaha laga yaabaa inay kaa soo daahdo waxaad markaasi Gmail aad u diri doontaa college-ka oo lagu ku soo aqbalay ama ku soo diray waraaqadaha invitationka ama aqbalaadaha ku soo diray college-kaas aad la xiriiri doontaa adigaana ku dhihi doona safaaradda fiisaha way iga soo daahday igala hadla saaxiibayaal waxaan isla soo gaarnay dhamaadka muuqaalka haddii ay jiraan waxyaalo kale aadan fahmin fadlan iigu soo qor qaybta commentiga saan kuu caabiyo sidoo kale mar labaad iyo mar saddexaad saaxiibayaal waxaan kaa codsanayaa in YouTube-ka aad subscribe noo saarto muuqaalkan aad noo share garayso muuqaalkan wuxuu leeyahay part 2 ilaa fiisaha uu ka soo baxayo muuqaalkan muuqaalkiisa xigo intaan kaga gaarayno anigoo ah walaalkiina Azaam waxaan idinkaga tagayaa nabadgeliyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh